taariikh ahaan waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyada iska xaadirisa ciyaaraha Olombikada. waana markii ugu horeysay ee Soomaaliya ay iska xaadiriso ciyaaraha dhinaca feerka ee Olombikada. Ramla Cali waxay ku nooshahay dalka Ingiriiska. Ingiriisku dhowr jeer ayuu ka dalbaday in Ramla Cali ay ku ciyaarto calanka Great Britain si ay Olombikada ugu matasho, laakiin geesiyadan yar waa ay diiday. waxaana ay dalbatay in calankeeda buluuga ah ee Soomaaliya ay dhinaca surato oo ay ka dhigto markii ugu horeysay ciyaaraha feerka ay Soomaaliya ka qayb gasho. Ramla Cali balan ay qaaday inay dahabiga ama kaalmaha ugu horeeya ay geli doonto ciyaaraha Olombikada. dadyo fara badan oo daawaday ciyaaraheeda waxay sheegeen in kalsooni fara badan ay ku qabaan Ramla Cali, waxaana ay yiraahdeen waa feeryahan cajiib ah, cid walba oo ka hor timaadana xoog ay ugu gantaa feerkeeda. waxna la aaminsan yahay in kaalmaha ugu horeeya ay Soomaaliya geyn karto ciyaaraha feerka ee sanadka Olombikada. geesiyadan macalinkeeda ayaa ka waramay. waxa uu yiri waxay mar walba u heelan tahay sidii ay ugu tababaran lahayd, isku xoojin lahayd, awoodooda ee oo dhanna ay ugu soo bandhigi lahayd ciyaaraha Olombikada ee sanadkan. waxa uu yiri waxaanu soo marnay ciyaaro adag oo isreebreeba, intiiba way ku guuleysatay Ramla Cali ilaa ay la xaqiijiyeen ka mid noqotay qof ku soo baxday ciyaaraha Olombikada ee sanadkan, waxaana ay ku mitali doontaa calankeeda buluuga ee Soomaaliya oo waxay diiday calanka Great Britain inay kor u qaado. Ramla Cali kaalma ugu horeeya ayaynu rajaynaynaa, waana geesiyad runtii garatay inay tahay Soomaaliyeed, calanka buluugana la xidhi doonta ciyaaraha Olombikada marka ay ka qayb gasho ama la iskugu yimaado ee sanadkan.